waxaanu aragnay intuu socday maalintii ardayda ka qaran jibiyeen imtixaanka shahaadiga inay dhabarkooda ku qorayeen astaan qabiil hebel iyo magacyaal jabhado xitaa la qorayay waana yaabay runtii waan yaabay qaana wixii qorayeen astaan xisbi ayay qorayeen manhajku waa inuu ahaadaa runtii manhaj ummad ama bulsho bedeli karaya manhajkeenu sax wasaaradda waxbarashada ilaa khayrsi way dadaalaysaa laakiin waxaad yara moodaa kulle gaab badan waa iska jira oo waxaad yara moodaa manhajkeenu aanu ahayn mid la jaan qaadi karaya baahiyada bulshadeena balse waxaad moodaa macallimiin fara badan inaynaan ma garatay shaqadooda inaynaan ku kalsooneyn shaqadoodii ayay ma garatay ayaynan aaminsanayn oo macallimadu waxay ka dhigtaan shaqo kumilgaar ayay ka dhiganayaan oo ay ku daydayanayaan shaqooyin kale arrinkaas waxay keensatay inuu macallinka inuu dan ka lahaan waayo ardaydiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود الإدلهان تبا ملك صدنا قد داوانيسان وبرنامج قارة يوريس قارة أنو كوريسان دونو الشيخ مصطفى حسن عبد الله أولو قرانوغي هاي مصطفى عراقي وبرسة يخبير كفا اللوضاء انت بدن أرمها وحبرشدا برنامج كان يوريس كان وحو كسابسي هاي سؤالو يو حقوريسي أنو كويدين دونو bal arrimaha waxbarashada iyo waxyaabaha inta badan ka dhexdhaca ugu horeyn Mustafa ku soo dhow KF Media TV waan dhawahay barakallahu fiik wariye macaan wana runtii ku faraxsanahay ina wareysi aan la yeesho channelka caalamiga ah KF TV ugu horeyn Sheikh Mustafa su'aash koobaad maadaama waxbarashada xiriir ay la leedahay arday waa maxay ما أرتينمو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دمان وحن سلام يا هذا وذينا ذا KF Media يودمان ذا وذياش هاي قيمة هذه أنا بره مصطفى عراقي ده سؤال كجوابه ما هو الطالب يعني ما أرضيكم هو هاي أرضيكو وقف أهلن أما ديار إنه حنبارته مسؤولية ده وحبرشة لا صاري قف والبا رسولكين وتلمى عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مد والبا وحي مسؤولية دي لا صاري أيا لقوا يدين دونا مالك قيامة أرضيقو مركو دوكسيجيس تشوغو أما جامعة دو تشوغو أما محد كو تشوغو وإنو أقادا ومحي شقادة لقبها هي أما لقربو صباح دو صوك الله هي والد كيسا خرج أيا كقبحيا sababta kharashka waalidkiisa ka baxay waa inuu isweydiiyaa sababta uu iskuulka uu joogo ama goobta waxbarashada waa inuu isweydiiyaa mas'uuliyadaasi waa mas'uuliyad tacallum waa inuu wax bartaa oo talo cilmiga iyo aqoontaasi uu qaadanayo koobe uu ku anfacaya horta naftiisana uu ku anfacaya ehelkiisana uu ku anfacaya ummadiisana waa ku anfacaya oo marka soo duubo insha Allah ta'ala jawaabta soo koobo ardaygu waa qof oo mas'uuliyadii la saaray inuu wax barto sida naftiisa iyo ummadiisa iyo bulshadiisa uu wax tari lahaa aad u mahadsantahay Mustafa waa maxay tilmaamaha wanaagsan ee lagu tilmaami karo ardayga fiican ama ardayga fiican tilmaamo noocii ayuu yeelan karaa waa su'aal aad wanaagsan waa inaan ogaanaa ardayga tusaalaha leh ama ardayga wanaagsan waa maxay astaamaha lagu garan karayo astaanta koobaad waa inuu ahaado ardaygu mid u diyaarsan inuu wax bartaa al-isticdaadu litacallum kaasi waa sifada koobaad oo ka mid ah sifooyinka ardayga wanaagsan mar walba qorshihiisa waxaa ku jirta inuu wax barto inuu 24 saacadood ee maalintaas inuu qeyb ka mid ah inuu u talagalo cilmi iyo aqoon rasuulkeena عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وحي العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة علمه فرل أيكو يهي مسلم iyo muslimad ba qofka ama ardayga tusaalaha leh arintaasi waa og yahay una fahansan yahay sifada labaad oo kamid ah sifooyinka ardayda wanaagsan waxa kamid ah inay ku sifeysan yihiin akhlaaq fiican inay ku sifeysan yihiin waana ogaataan
علمي أسباب أما أهم الأهداف من العلم علمي أهداف تسا وين وامحي إنه قفك أخلاقيات كيسا إنه بدلا إنه كرديق أرضي أخلاق ديسا أي في عنتاي إذا وزارة وحبر الشباب وحلو بحي وزارة التربية والتعليم أو وزارة التربية دا يحبر الشباب هل كوحن كيف فهمينا إلى أخلاق دو أي كمضنتها هي أقونتو سيدي دبا أخلاق أما علمي بلا أخلاق لا ينفع حمكم أنفعيان بينكم جالسين ودكت هي حديث قاعد بيتكي أما قبيجي وتريي شاعرك عربيت وحي لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي أو ما لم يتوج ربه بخلاقي علمي همود كلي إنه قفك أنفعيه hadduu qofku yahay qof bila akhlaaq ah mahma abashiday dadkii inta badan ay yaqaanaan iyo caruurta keejida ayaa mar walba ayaa ku cilcilisa mahmadaas waxay tahay alcilmu bila akhlaaq ama alcilmu bila khuluq kashajarati bila thamar cilmiga akhlaaq la hadduu yahay qofka cilmiga leh bila akhlaaq waa geed aan midho lahayn sifada saddexaad oo kamid ah sifooyinka ardayga wanaagsan waxaa kamid ah inuu ardayga yahay arday naftiisa ku kalsoon wuxuu ku kalsoon yahay aqoonta uu leeyahay inuu meel ku gaari karayo wuxuu ku kalsoon yahay inuu meel sare inuu gaari karayo hadduu cilmigaas iyo aqoontaasi uu yeeleeyo waxaan oran karayaa labada baal oo ka mid ah baalalka guusha waa athiqatu walijtihaad guusha iyo dadaalka arrintaa ama laba arrimood waa inaad iga soo xafidaan oo inta badan ardayda waxay markay weydiinayaan macallin sare ardayda qaran jibisa waxa inta badan weydiiyaan macallin waxaad nasiisaa xikmad dhaxalgal ay nasi xikmadda aan siiyo markasta waa janaaxa alnajaax huma athiqatu walijtihaad labada baal oo qofka uu ku gaari karayo guusha waa kalsoonida iyo dadaalka kalsoonidu inaan laga tagaa maaha kalsoonidu waa wixii adiga mustaqbalkaaga meel sare ku gaarsiin karaysa arrinta ugu dambeysa waa xubu diini wawatan qofka ardayga tusaale hale waa qof jecel wadankiisa iyo diintiisaba oo marka uu cilmiga iyo aqoonta qaadanayo wuxuu ku niyeenayaa siduu diintiisa iyo wadankiisa ku anfaci lahaa inahaas runtii aan kusoo koobayaa sifooyinka lagu garto ardayga tusaalaha leh ee guulaystay mustafaw maalmihii lagu jiray imtixaanaadka kulley social media waxaa lasoo gudbinayay muuqaalo kala duwanoo ardaydii iyagoo imtixaanaadka u fadhiisanayey inta badan waxaa ka muuqatay nacayb badan oo ay u qabeen waxbarashada iyo goobaha ay dhigan jireen maxaa sababee la oran karaa inay ardaydu nacaan waxbarashadii iyo goobihii ay intaa wax kusoo dhiganayeen su-aasha su-aal aada wanaagsan waayo waxaan ku jirnaa marka 7 cajiib ayaan ku jirnaa 7 oo ay ardayda ay aada u naceen waxbarashadii ay u naceen goobaha waxbarasho ay naceen macallimiintoodii ay naceen maamulkoodii waxaan insha allahu tacaala runtii dhowr qodob ayaan sheegi doonaa waa qodobo aan oran karayo waa qodobada keensatay in ardayda nacaan waxbarashada qodobka koobaad waa manhajka manhajku waa inuu ahaadaa runtii manhaj ummad ama bulsho bedeli karaya manhajkeenu sax wasaaradda waxbarashada ilaa khayrsi way dadaalaysaa laakiin waxaad yara moodaa kulle gaab badan waa iska jira oo waxaad yara moodaa manhajkeenu aanu ahayn mid la jaan qaadi karaya baahiyada bulshadeena ani tusaalahaan waxay bari dhiga macadin carabigan dhiga carabiga marka xaqiiqatan ka hadlo isma laha manhajka iyo garaadka ardayga isma laha arrintaasi runtii waxay keensatay ardaydan in badan inay nacaan waxbarashadeena nacaan xataa mararka qaar waxaan yara xasuustaa waxaa dhici jirtay anoo dhigaya ama anoo ku jira xisadda in ardayda yara karhaan casharkaan dhigaya gaar ahaan qaybta naxwaha oo kale oo arday badan bay weydiisay macallin manhajkani ama duruustan aan qaadanayna macallin garaadkeenna lama jaan qaadi karayo waayo waxaa fiican markaad qofka wax u barayso waa inaad tadaruj iyo jaranjaro inuu soo maro laakiin jaranjartaas ayaa ka waqan oo gaab weyn baa jira ardayga mustawiisa iyo manhajka arrinta labaad
waa macalinka aan u diyaar garaysnayn wax dhigis ama macalinka aan niyad u lahayn inuu wax baraa. sideedaba qofku wuxuu ka dhaqaaqaa niyad. hadduu macalinku niyad u haysto ama niyad si niyad uu u dhigo oo u gudbiyo casharaantiisa si ma garatay hagar la'aan ah, si ay farxadi ka muuqato, arday qasbiyeen uu jeclaanay waxbarashadiisa. balse waxaad moodaa macalimiin fara badan inaynaan ma garatay shaqadooda aynaan ku kalsoonayn, shaqadoodii ayay ma garatay ayaynan aaminsanayn, oo macalimadu waxay ka dhigtaan shaqo kumilgaar ayay ka dhiganayaan oo ay ku daydayanayaan shaqooyin kale. arrinkaas waxay keensatay inuu macalinku inuu dan ka lahaan waayo ardaydiisa. fa sababta labaad aan oran karo inay ardayda ay nacaan waxbarashada waa macalinka aan ahayn active, macalinka aan firfircoonayn. sababta saddexaad waxaa keensanaysaa aduruuf almaaliya, duruufta dhaqaale oo runtii dhaqaalaha waddanka waad arkaysaa inuu hoos u dhac inuu ku yimi. dhaqaale daradana waxay sababtaa arday badan inay awoodi kari waayaan inay fiiga bixiyaan. waxaa dhaci karta mararka qaar inaad mar kasta ardaygu markuu fiiga bixi waayo waxaa dhacda in xiisada laga soo saaro kolba. bixistuu ka bixi xiisada kolba laga soo saarayo wuxuu ka natiijabayaa waxbarashada. wuxuu aaminayaa inay goobta waxbarashada tahay goob laga ursanayo lacagta uu laga ursanayo. taa runtii waa waxyaabaha keensan karaysa inuu ardayga naco waxbarashadiisa. oo waxaan runtii ku baaqi lahaa dhammaan maamulayaasha ee qiimaha leh iyo mulkiilayaasha inay arrintaasi aad ay u fiirsadaan, ay isku dayaan runtii inay ardaydooda ay la saayiraan xagga dhaqaale bixinta iyo xagga ma garatay fii bixinta. markuu ardayga fiiga bixinayo iyo ardaygu ma garatay bixinayo lacagta bisha in lala saayiraa waa muhiim. sababta ugu dambeysa aan oran karayo waa sababaha keensatay inay ardayda nacaan waxbarashada. ardaygu ma haysto xillu ama xiisad uu ku ciyaaro. xiisadaha waad arkaysa xiisadaha secondary marka la eego 10 xiisadood ama 10 maado. dugsiga dhexena waa 7 maado. iskuulaadka qaar way jiraan oo xiisadaha qaar ay ardayda ay ku ciyaaraan, ardayda ay ma garatay ay sport sameeyaan, ardayda ay activity kala duwan ay qabtaan. laakiin badana iskuulaadka waddankeenu ma jiraan waxa. oo ardaygu maalintii kaba socto tusaalahaan 6 xiiso ayuu galayaa. 6 xiisadood waa maadooyinka buu qaadan 10 buu qaadanaya. taasina qofku yar daalaya. waxbarashadiisana waxaa dhacday in badan inay nacaan. way system runtii oo sababta runtii inay ardayda waxbarashada inay nacaan. halka waxaan ka baaqi lahaa inay iskuulaadku xilli gaara ay u talagalaan ardayda sida ay u ciyaaraan, sida ay activity-yadooda iyo hibooyinkooda ay u muujiyaan. sabab kale aan ilaabay waan ku dari doono waa social media. social media runtii waxay noqotay balwad guud bay noqotay, gaar ahaan dhalinyaradeenna ayay ilduufsatay. social media ee lagu dhex jira mar kasta laftarkeedu waxay sababtay ardayda inay waxbarashada inay ka saahidaan. intaasaan kusoo gabagabeynayaa. mustafe, kolley imtixaanada wasaaraddu horeba u qaadi jirtay, waqtiyo horena imtixaanada waa la geli jiray. laakiin waxaad moodaa waayahan dambe in isbedel badan ku yimid dhankii ardayda, yacni siday waxyaabaha ka soo fulaya laga soo tabinayo markaad aragtid. oo qaarkood la sheegayo macalimiinta ilaalinaya inay dileen, qaar la sheegay marka imtixaanka laga baxo in shiid la bilaabayay. marka dhibaatada marba mar ka dambeysa sii kordhaysa. maxaa la oran karaa sabab u tahay? ma dhanka macalimiinta ilaalinaya, ma dhanka wasaaradda lafteeda? bal maxaad ku tilmaami kartaa? ma ardaydoon hore wax loogu soo dhiginba maxaa sababeed oran kartaa in ardaydu intaa sida adaga u gadoodaan? waan gartay. su-aashani runtii waa su-aal aad u muhiim ah, maadaama ay ardaydu dugsiyada sare beri dhaweyto ay kasoo faraxasheen imtixaanka shahaadi. waxaan u leeyahay dugsiga sare waa dugsiga sare uu ka hawl badan yahay, dugsiga dhexe kala hawl badan yihiin. runtii taan su-aalaha ka jawaabin waxaan u mahad celinaya wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Somaliland
oo ugu horeeya wasiirkeena waxbarasho ee doctor buuxane oo runtii maanta doorkan dardar geliyey ilaalada imtixaanka oo waxaa yara runtii ka markhaati nahay imtixaanka shahaadigan ee 2023 in si fiican oo adag oo hagar la-aan ah loo ilaaliyey wasaaradda iyadoo la kaashanaysa jaamacadaha dalka. markaan kusoo dhawaano su-aasha jawaabteeda, waa maxay sababaha keentay in ardayda inay dhibaatooyin iyo gadood ay ka dhex sameeyaan goobaha imtixaanaadka? haddaan kusoo yardaadega jawaabta waxaan oran karayaa kow dee kolley ardayga rabshada iyo buuqaa sameynaya waa arday aan u diyaarsanin waxbarasho horta. waa arday laga yaabo siaan aaminsanahay ardaygan gadooday, ardaygan rabshada sameeyey, ardaygan khasaaraha geystay waa arday sanadan u talagalayay qish buu u talagalay. oo marar badan waxaan arki jiray arday badan oo af buuxa iga oran jiray macalin waxna dhigan maayo casharaantana diyaarin maayo sababtoo ah kolleyba imtixaanka shahaadiga waanu qashi doonaa. kaasoo sababta koobaad waa diyaar garow la-aanta iyo isku hadlayn. waxaa laga yaaba in asxaabtiisa inuu isku hadleeyo ayaa laga yaaba. arrinta labaadna kolley waa kalsooni darro weeyaan. kalsooni darro ayaa keensanaysa oo ardaydiina runtii arday badan oo ka mid a ardayda gashay imtixaanka shahaadiga iskuma kalsoona oo ma aaminsana inay imtixaanka si wanaagsan oo saxsan oo si wanaagsan ama qaab wanaagsan ka shaqeyn karayaan. waxaan xitaa aaminsanahay imtixaanka laga qaado ardayga iskuulkiisa imtixaanka uu ka qaado inuu ka adagay 100% imtixaanka ay wasaaradda qaadayso. haddanana wuxuu qalbigiisa aaminay inuunan awood u lahayn imtixaan ka shaqeeyo. tadee kalsooni darradaas waxay keensatay inuu isku dayo inuu qisho. qishka marka loo diidayna muxuu sameeyey inuu rabsh sameeyo, inuu buuq sameeyo. ustaad raacin ayay Soomaalidu tiraahdaa. ustaad raacinaya waa kalsooni darro. arrinta labaad weeyaan. arrinta koowaad waxaan sheegnay diyaar garow la-aan, kalsooni darro. arrinka saddexaad ardayda qaar ama ardaydaasi waxay caadaysteen ama waxaa laga yaaba inay yihiin arday la qabsaday qish ilaa xataa xilliga ay iskuulka ay joogeen. yani waa arday la qabsatay qish hore la qabsatay oo haddaa hore lagu adkeyn lahaa imtixaanka si nafisa oo degan way ka shaqeyn lahaayeen. laakiin intay iskuulaadka joogeen ayaa waxaa dhici karta in qishka ay u fududayd. taa laftiga waa sabab keensatay arday inay ku gadoodaan ama rabish sameeyaan imtixaanaadka shahaadiga sababtoo ah waxaa lagu adkeeyey ilaaladii baa lagu adkeeyey. arrinta kale aan oran lahaa waa sababaha keensatay ardayda inay rabish inay sameeyaan. dadka qaar ama ardayda qaar waxay aaminsan yihiin inuu qishku yahay xaq ka mid a xuquuqdooda. ka waran iminka muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay waxbarasho inuu helo soo ma, inuu caafimaad helo, inuu leyd helo soo ma. ardayda qaar waxay aaminsan yihiin inuu xaq u leeyahay inuu helo qish. taa lafteeda waa dhib, waana musiibo. ardayahu halkan waxaan kugu sheegay qishka xaq xuquuqdooda ka mid a ma. rasuulkeena wuxuu alayhi salaatu wasalaam man ghashana falaysa minna. khiyaamada qofka la u kaca ama sameeya qofkaasi maha qof muslima ama astaamaha muslimka lagu garto mabaha. intaasi runtii waa inaha aan kusoo yaro koobi karayo sababaha keensatay ardayda inay rabash ku dhex sameeyaan imtixaanaadka. mustafow kolley aafooyinka iyo dhibaatooyinka inta badan bulshadeena yani reebe waxaa ka mid a qabyaaladda. kolley bulshadana in badan waa laga wacyigeliyaa. iminka waqtiyada dambe waxaad moodaa dee goobihii waxbarasho laftooda iyo ardaydii iyagoo laga filayay in iyagu ummaddan bedelaan in iyaga laftooda ay kasoo dhex muuqatay oo maalmihii u dambeysay shaadharkooda iyo garamaantooda waxay ku qorayeen magacyadii reeraha. marka arrintaa maxaa sabab oran kartaa? ma macalimiinta laftooda qayb ka ahoo miyaan hore markay dugsiga joogeen kormaan laga wacyigelin arrimahaas oo kale? horta arrin runtii arrimahaasi arrimo aada u foolxun bay ahayd runtii. weligeen maan arag intaas soo sannadood baa macalin ahaa, muddo 20 sannadood ayaa macalin ahaa. sanad kasta waa la qalin jebinayay, laakiin runtii
akhlaaq xumadan iyo anshax xumadan aan ka arkay sanadka runtii weligay maan arag waxaan u maleynayaa bulshadeena maynay arag waa waxyaabo runtii laga yaqsoodo laga wisiiso oran karaa ardayga uu farxi kara markaad qalanjibinayso farxadda waa wax macruufa waa caadi dhabarkaaga waxbaad ka qorqoran kartaa laakiinse yani waxaad qorayso inuu ahaado wax anfac leh wax ma garatay sharaftaada iyo karaamadaada aad ku dhowraysa waa inuu noqdaa maaha shay ama wax aad sharaftaada iyo karaamadaada meel aad kaga dhacayso oo waxaanu aragnay intuu socday maalintii ardayda ka qalanjibiyeen imtixaanka shahaadiga inay dhabarkooda ku qorayeen astaan qabiil hebel iyo magacyaal jabhado xitaa ayaa la qorayay waana yaabay runtii waan yaabay qaarna waxay qorayeen astaan xisbi ayay qorayeen halkii laga fili lahaa ardayga inuu iskuulkiisa inuu ammaano inuu duca ku qorto inuu mahmaadha xaalgala inuu qoro ayaa waxaan arkaynay ardaydii iyagoo dhabarkooda iyo xijaabyadooda iyo shaararka ku qorayay astaano qabiil arrintaas waa arrin aada u foolxun ardayda dambe insha allahu tacala imtixaanka shahaad galaysa arrintaas waan kaga degayaa oo waxay foolxumo ku tahay waxbarashada waddankeena ama jumhuuriyaddeena barakeysan ee somaliland oo haddaad wax aad dhabarkiina wax ka qoraysaan wax fiican oo karaamo leh oo sharaftiina aad ku ilaashan kartaa waa inaad qortaan ma fahantay arrintaas waxaan oran kara waxaa sabab u ah goobaha waxbarasho laftarkeedu sabab bay u tahay waxay ahayd ardayga inay wacyigiisa inay dhisto ayay ahayd ardaygu waa inuu toddobaadkii uu joogo dugsiga waa inuu xisad ka mid a xisadaha u qaadanayo inuu wacyigelin waa inuu ku qaataa waxaan xasuustaa beri aan macalin ahaa waxaan ka ahaa dugsiga dhexe ee alhuda primary waxaa jiri jirtay xisad leedo xisati tawjiihaad xisada waanooyinka galaas walba wuxuu lahaa hal xisad oo waana waan xasuustaa ilaa 2005 6 7 kadibna waxaan runtii markaan yara qiimeynay nasaaixan iyo waanooyinkan jiil waxay soo saartay markii dambe waxay soo saartay jiil dhisan bay soo saartay ardaygana waan ogow ardaygu mustaqbalka waxaad u dhigtay oo ilaabaya laakiin mar walba muxuu soo xasuusnaanayaa waanadaada iyo dhiirigelintaada ayuu soo xasuusnaanaya fa arrintan iyo foolxumadaasi waxaa runtii mas-uuliyaddeeda saari lahaa macalimiinteena iyo maamulkeenaba ayaan saari lahaa sababtoo ah macalinku waa inuu ahaadaa mid saameeya ardaygiisa macalinku waxay ahayd inuu ardaygiisa inuu aqoonta iyo akhlaaqda inuu sharaabsiiyo laakiin arrintaasi way noqon weyday ana oran maayo macalimiinta oo dhan weeya laakiin macalimiin badan baa jirta aniga daftarkayga waan ku jira mas-uuliyaddaas xagga wacyigelinta aad iyo aad ayaan ku liidanaa arrintaasi waxay runtii inaga na xasuusinaysa mar walba inaan ku dadaano ardaynayna inaan waanino arrinka kale aan oran karo sababaha keensatay ardayda inay waxyaabaha inay dhabarkooda ku qortaan dee ardaygu haddaad wacyiga iyo waanada aad ku yarayso oo ku dayasho wanaagsan aad u noqon weydo dee dad kale ayaa noqonayaa ku dayashadooda waxay noqotay dadka baraha bulshada jooga ee tiktokerada iyo youtuberada ee inta badan ka sheekeeya qabyaaladda ayay ka dhigteen hogaamiyaashooda iyo qudwadooda ayay ka dhigteen halka ay ka dhigan lahaayeen macalimiintooda fa arrimahaas ayaan oran lahaa waa sababay u tahay qoraaladan iyo ficiladan ee aadka u foosha xun ay ardayda ay la imaadeen xilligii uu socday markay ka qalanjibiyeen maalintii imtixaanka shaadiga gunta iyo gunaanadkii barnaamijkeena talada iyo nasteexada iyo dardaarankaad halkan u marinaysaa maxay tahay guud ahaan bulshadeena kala duwan runtii waxaan dardaarankayga u yahay kow inaa horta ardayga wacyigelintiisa iyo jacaylka iyo xiisaha u qabo waxbarashada waa in la kubciyaa horta kaa waa kow xilligaas iyo arday wanaagsan u tayi leh ayuu soo bixi karayaa arrinta labaad macalinka laftarkiisa waa in la tayeeyaa macalinka laftarkiisa waa in la dhiirigeliyaa macalinka laftarkiisa tatwiir iyo dhiirigelin iyo taakulayn buu u baahayay ama ha noqoto af ahaan ku taageer ama maadi ahaan ku taageer oo mushahar wanaagsan oo ku filan waa inaad siisaa xilligaas ayuu wuxuu u hagarbaxayaa wax dhegeysta ardaydiisa waxyaabaha kale runta aan ku dhiirigelin lahaa
hawlwadeenayaasha waxbarashada inay in badan ardaydooda ay ka wacyigeliyaan qabyaaladda. qabyaaladdu waxaad moodaa waa kansar ku habsaday ama ku dhacay ummaddeena weliba gaar ahaan dadkeena Soomaalida meel kasta ay joogaan. qabyaaladaasi runtii qeyrka waad ka haraysaa, horumarna waad ka haraysaa, khayr oo dhan waad ka haraysaa haddaad ku sifaysnaatid qabyaalad. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum. qabiilka waa wax la isku barto, ceeb maaha, laakiin qabyaaladda ayaa xun iyo cunsuriyadda iyadoo dadka lagu kala sooco qabiil lagu kala sooco. arrimahaas iyo inahaasi ayaa runtii kusoo gabagabayn lahaa talooyinka aan siinayo howlwadeenayaasha waxbarashada. aad baad mahadsan tahay. daawadayaalkaas waxa uu ahaa sheekh mustafe xasan cabdilaahi oo loo garoon og yahay sheekh mustafe ciraaqi oo isagoo inta badan ka faalooda arrimaha waxbarashada. intaynu barnaamijkan lamid aynu ku kulmi doono waxaan anaga iyo mustafa bayd kaga tegi doonaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.